halkan aan ku suganahay waa deegaanka Burcada yar oo dhanka bari kaga beegan magaalada Hargeysa waxaana galabta si rasmi ah uga furmay kulan diimeedka jameecada tabliiqiinta waxaana kulankan ka soo qayb galay dadyow ka kala socda wadamada caalamka iyo wadamada aynu jaarka nahay ujeedada koowaad ee kulan diimeedkan ayaa ah sidii dacwada loo gaarsiin lahaa dunida iyo sidii wanaagga la isu fari lahaa xumaantana la isaga reebi lahaa kulanka waxa furay wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay culimo kala duwan oo ka socda dunida kulankaasi markii uu furmay waxaan wax ka weydiinay dadyoogii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulan diimeedkaasi waxaana kamid ah hadaladoodii ijtimaacaas waa ijtimaac barakaysan dadkuna waxa isku imanaya waa fikir iyo sidii dadku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu xirmi lahaayeen arintaas ay isku imanayaan marka ijtimaacaas dadka ka soo qayb galay waa dad kala duwan wadamo kala duwan ka yimid Ilaahay dartii baana isku yimaadeen wax kale isku imanay sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maxabada iyo dadka muslimiinta ee ka dhaxayn lahayd ay isku yimaadeen caalamkan ka kala yimaadeen waxaanu soconayaa 3 xisho inta ka dibna jameecad baa ka bixi doona tiradooda markaan loo sheegi doono ilaa gaariga ilaa 500 ilaa 300 ilaa 700 gaadha ayaa ka baxaya daafaha dunida oo dhan uu ku baxaya run ahaantii waxa weeyaan waa dacwadu waa tii ilaa nabiga maxamed soo jirtay oo nabi maxamed adduunyadan keenay oo rasuulku yiri kiina aayad bartow wariga gaarsiiya xaqa waayo maanta ambiyadana way tageen rasuushina way ka tageen dalka laakiin waxa diintii waa ay maanta inooga tageen baaqiya marka diintii si adduunyadan baaqi u haato waxa la doonayaa walaalayaal dhamaanteanba inaan ka wada noqono mas'uul oo aynu gaarsiino kuwa aan muslimka ahayn inuu gaarsiino si loo helo taa waa in la helaa dad fikirkii xambaarsan oo isku yimaada oo ka shuuraysta oo wax weeyaan caalamka laga wada yimi imka halkan caalamka waa laga wada yimi Pakistan baa laga yimi Hindiga laga yimi Afrika laga yimi geeska oo dhan baa laga wada yimi waxa loo imanayaana wax kala walaal ma waa si litakuuna kalimatu Ilaahi hiya al-ulya si uu noqon lahayd kalimadda Ilaahay mid sarreysa salaatigeed walaalay waajib ayna wada saaran inaan waajibkaasi garanno Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinniyees wax kala ma aanu abuuran waxaanu abuurtay cibaadadaasina waxa weeyaan waa mid waajib oo inaanu gaarsiino rasuulku wuxuu balaqo anni walaw aaya warkiina joogo ka maqaniga gaarsiya salaatigeed maanta kulankii maanta bilaabmay waa taayibka noo furmay waa mas'uuliyad qof walba saaray inuu qofka kala gaarsiyo gurigiisa gaarsiyo ehelkiisa gaarsiyo ka mas'uulka ah dawladda uu yimaado oo asaguna mas'uuliyadda garto oo madaxweynuhu garto oo cid walba garato ayaa loo baahan yahay gobolka Togdheer baan ka yimi halkan waxaan u yimi inaan ka qayb galno ijtimaaca wada tashiga ummadda islaamka iyo diinta iyo khayrka badan ka socda inaan ka soo faa'iideysano iyo ducada islaamka isku imanayo ummadda islaamka aan ugu ducaynayo Soomaali dhammaan guud ahaan marka TV qaranka uu ku mahadsan yahay hawsha qaran oo hayo qarankana waa loo shaqeynayaa ummadda iyo diinta iyo dacwada dhinac kasta waa la qabanayaa halkan horta waxa ka dhacay waa kulan diimeed sideeba diintu la feenay ugu dhaqanaa caalamka kale wada gubanaya gaalada leh iyo islaamka ka gaabiye daacadka Ilaahay sideebeen islaamkaana ugu yeedhnaa salaada soonka sakada sadaqada iyo wixii la mid ah Ilaahayna faray kuwa kale ee gaalada ana xilbay naga saarane sideebeen diinta u gaarsiinaa taladaas la iskaga wada yimid meel kasto caalamka kamida oo halkan loogu tashanaya fikirkaana lagu dhalaalinaya war diintu sideebeen la feenay ugu dhaqnaa caalamkana u gaarsiinaa dadkuna hadiya jeer waxay iyaga oo luqadda garanayaan wax lagu fahansiiya luqadda markaa dad kulan diimeed halka ka dhacaya baan tagaya maba fahmayo laakiin sidii hore loogu sheegay leeyahay kulankii islaamka dhacaya ayay u garanayaan kulanka islaamku waa xajka halkana waa kulan diimeed insha Allah in kelmadaad oo xidhnayn si wanaagsan u fahanno ayaan doonaynaa sidaan ka wada warqabno galabta halka waxay nooga furmay ijtimaac kulan islaami oo weyn kulanka islaamku wuxuu ku saabsan yahay sidii diintu nolosheena noo iman lahayd caalamkana iman lahayd waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogto shaqada waynu wada leenahay waana shaqay naga wada dhaxaysa waana shaqada Ilaahay ugu talagalay inaan ku wada badbaadno maxay tolay walaalayaal insha Allah tabaaraka wa taala nin kasta waa ka mas'uul adduun iyo aakhir waxaan ku liibaanaynaa waa diinta
diintuna inay nolosheenna timaado ku dhamaystirto dadaal bay u baahan tahay dadaalkaasuna afar xaalo inay diinta gelinay u baahan tahay diinta inay fakarka gelino waqtiga gelino maalka gelino nafta gelino inta haddaynu maanta diinta gelino innaguna waa kala badbaadaynaa ilaahayna waa kala badbaadaynaa haddaynu laakiin walaalayaal maanta intaa diinta gelin weyno innaguna dhexdeenna kala badbaadi mayno ilaahayna kala badbaadi mayno dadkana waxaan ugu baaqalaa muslimiinta ilaahay muslimiinta quweeyo muslimiinta ilaahay quweeyo qalbigooda ilaahay soo jeediyo ilaahay qulubtooda soo jeediyo ilaahay dadka sayay muslimiinta ha soo jeediyo wanaaga ilaahay ha ku wanaajiyo ilaahay wanaaga ha ka aqbalo ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala halkaanu joognaa waa meel aan isugu nimi intaasoo qof baa isugu yimi khayr baa la isugu yimi dacwad baa la isugu yimi dacwad baa la fidinayaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka muslimiintaas haya in ilaahay soo kala qaboojiyo walaalayaal dacwadan waa shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqada nebi maxamed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala qum faandir buu ku yidhi warabbaka fakabir wasiyaadaka fadaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qum faandir baa lagu yidhi rabbigaaga weynee wasiyaadaka fadahar jirkaagana daahira urujiis fahjuwan markaa nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam dadaalkan diineed loo caleema saaray ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay markaa shaqadan waa shaqayn naga wada dhaxaysa markaa shaqada diinta waxaa la doonayaa inaynu kulligaan aan ka wada shaqaysano adduunyada maanta in laga shaqeeyaa bay doonaysaa in loo fikiraa bay doonaysaa in laga fikiraa bay doonaysaa diintuna waxay doonaysaa in loo fikiro oo laga fikiro oo waxaa la doonayaa caalamka oo dhan in la gaadhsiiyo oo dadkaa gaalnimada ku dhimanaya dadkaasi maalinka yowmalqiyaamaha mukhraatibi ay la istaageen waxaa odhanaya annaga diintiina lama soo gaadhsiin halkaasi ilaahay subxaana wa tacaala baa odhanaya annaga diintana lama soo gaadhsiin markaa caalamka oo dhan inaan diinta gaadhsiino oo dadka diinta gaadhsiino oo ehelkeena aan diinta aanu farno oo dadka diinta wada farno oo shaqaale diineed baynuna ilaahay baa shaqaale diineed naga dhige diinta inaan ka wada shaqaysanaa laynaga doomi siciid insha allah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dacmaashii oo dhan halkan bay taallaa dadkii adduunka meel walba waa la iska yimi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan leeyahay dhallinyarada fadhiga ka soo kacoo ka soo qayb galo oo acmaasha iyo diinta inaan ka shaqayno waxaan ku dhi inaynu soo doonanno ilaahay dartii aynu baxno dee ducadii iyo wayna khayrkan ilaahay aynu qaadanno waa 3 casho alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin kulankan ayaa sanad kasta xilligan oo kale lagu qabtaa halkan maxamed wardi iyo sakariye warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.